Hindiya. Muslimiinta Hindiya waa 200 oo milyan, waxayna boqolkiiba 15 ka yihiin bulshada dalkaasi oo lagu sheego 1 bilyan 377 milyan 922,815 ruux. diinta Islaamka ayaa dalkaasi ka ah diinta labaad, waxaana ka horeeya oo kaliya diinta Hinduuska ee wathaniga ah, taas oo ay aaminsan yihiin 3 meelood meel ka mid ah bulshada dalkaasi. Muslimiinta wadankan waxay aaminsan yihiin madhabka Sunniga oo ay aaminsan yihiin boqolkiiba 80 muslimiinta caalamka. Hindiya waa dalka labaad ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka, waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Indonesia oo ay ku nool yihiin muslimiin tiradoodu tahay 225 milyan. Islaamka ayaa Hindiya gaaray xilligii khaliifkii labaad ee muslimiinta Umar bin Khattab, waxaana la sheegay in ganacsato muslimiin ah ay halkaasi tageen, sidaasina ay ku faafiyeen diinta Islaamka. waxaana dhulkaasi markii dambe furatay khilaafadii loogu magac daray dawladii jihaadka ee Umayyiinta oo dhul badan oo caalamka gaarsiisay Islaamka. Dastuur Hindiya ayaa dhigaya in muslimiinta dalkaasi ay xor u yihiin muujinta shaacirtooda, gaar ahaan meelaha ay ku badan yihiin, taas oo aan waxba ka jirin, waxayna muslimiinta had iyo goor la kulmaan dhibaatooyin kala duwan. taxdiyaadkii ugu dambeeyay waxay muslimiinta la kulmeen bishii Maarso aynu soo dhaafnay, xilligaasi oo la gubay masaajid iyo madaaris, iyadoona la dilay 10 ruux oo muslimiin ah. meelaha ay muslimiintu ku badan yihiin waxaa gumaad aan kala soc lahayn ka geysta ciidamada manaxyaasha ee Hindiya, halka meelaha ay ku yar yihiinna ay taxdiyaad kala kulmaan bulshada kale, gaar ahaan kuwa Hinduuska. Hindiya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan caalamka ee lagu dhibaateeyo muslimiinta. haddaba siday muslimiinta wadankan u soo dhaweeyaan bisha barakaysan ee Ramadaan. muslimiinta Hindiya siday u dhan yihiin waxay aad u qiimeeyaan oo ay u qadariyaan bisha Ramadaan, balse maadaama ay ku nool yihiin deegaano kala tagsan oo aad u kala fog, waxay aad isugu khilaafi jireen bilashada bisha barakaysan ee Ramadaan. waxaana markii dambe la dhisay hay-ad sharci ah oo ay ku midaysan yihiin culimada wadankaasi, taas oo looga dambeeyo waqtiga uu bilaabanayo Ramadaanka iyo waqtiga uu ku eg yahay, waxayna soo saartaa bayaano arrimahaasi ku saabsan oo loo qaybiyo muslimiinta. markii lagu dhawaaqo inay bilatay bisha Ramadaan, farxadda ayaa haraysa deegaanada muslimiinta ee dalkaasi, waxayna bilaabaan inay iswidaarsadaan hal ku dhigyo farxaddaasi ku saabsan sida Ramadaan mubaarak iyo wixii la mid ah. sanadkan muslimiinta wadankan iyo guud ahaan kuwa ku dhaqan wadamada qaarad weekaha Hindiya waxay soomayaan 16 saac iyo daqiiqado dhowr ah. inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, muslimiintu waxay si aad ah u camiraan masaajida, waxayna sameeyaan xalaqaad u gaar ah Qur'aanka Kariimka. qof walibana wuxuu ku dadaalaa in ugu yaraan hal mar bishan uu khatimo Qur'aanka. muslimiinta wadankan waxaa la sheegaa inay si aad ah ugu dadaalaan sunnada saxuurta ee uu nabigu ku sheegay barakada, waxaana caado ah in dadka badana ay ku saxuurtaan bariiska oo si aad ah ay u tacbadaan bulshada dalkaasi. caadooyinka ka jira Hindiya waxaa ka mid ah in xaafad waliba ay leedahay qof dadka saxuurta u kiciya, kaas oo ka hor aadaanka fajr isu soo mara dhammaan guryaha loo xil saaray. markay gabagabo ku dhawaato bisha Ramadaan, wuxuu ninkaasi bulshada muslimiinta ka helaa hadiyado kala duwan si shaqadiisa ay dhiirigelin ugu noqoto, dowrkaasi muhiimka ahna uusan baylaha u noqon. markuu gabal ku dhaco, muslimiinta waxay ku afuraan timir iyo biyo saafi ah. dadka qaarna waxay ku afuraan cusbada caadiga ah, waa haddii ay waayaan timir sida caadada ka ah dalkaasi. bariiska oo ah halbowlaha cuntada dalkaasi ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku afuraan. sidoo kale waxay ku afuraan digirta misirta loo yaqaano. waxaa kaloo afurkooda ka mid ah cuntada loo yaqaano hariis ama xaliim, taas oo laga sameeyo qamadi lagu karshay hilib iyo maraq oo lagu daray filfisha kulul. cabitaanada ay ku afuraan dadka muslimiinta ah ee wadanka Hindiya waxaa ka mid ah casiir liin laga sameeyay iyo caanaha xoolaha oo biyo lagu barxay.
gobolka Kerala ee dhaca koonfurta waddanka Hindiya muslimiintu waxay ku afuraan cabitaan bariis laga sameeyay dhaqamada ka jira Hindiya waxaa ka mid ah in qof waliba uu afurkiisa iyo cabitaankiisa uu keeno masjidka xaafadiisa halkaas oo cuntada lagu jamciyo laguna sameeyo afur wada jir ah oo ay isku arkaan muslimiinta isku xaafada ah intuusan gabalka dhicin wax yar ka hor waxaad arkaysaa caruur iyo dad waaweyn oo sida cunto iyo cabitaano kala duwan caadooyinka ka jira waddanka Hindiya iyo qaybo badan oo ka mid ah Aasiya waxaa ka mid ah in markay muslimiintu soo dukadaan salaada taraawiixda loo qaybiyo waxyaabo macmacaan ah iyo cabitaano fudud salaada taraawiixda dalkaasi badana waxaa la dukadaa 20 ragcadood halka gobolada qaarna la dukado 8 ragcadood inta la nasanayana waxay culimada iyo ducaada jeediyaan muxaadaraad kooban oo hadba ka hadlaya waxyaabaha munaasabaadka ah ee markaasi taagan muslimiinta Hindiya waxay sidoo kale aad u nooleeyaan sunnada i'tikaafka gaar ahaan 10ka dambe ee bisha Ramadaan waxayna sidoo kale aad ugu dadaalaan inay haleelaan habeenka Laylatul Qadarka oo ka khayr badan 1000 bilood jumcada ugu dambaysa ee bisha Ramadaan muslimiinta Hindiya waxay u yaqaanaan jumcada sagootinta waxayna u arkaan inay tahay munaasabad aad u weyn waxayna badankood maalintaasi ku sugnaadaan masaajida sidoo kale dhaqamada ka jira Hindiya waxaa ka mid ah in marka ay soo gabagabowdo salaada taraawiixda qofkii salaada tujinayay la siiyo hadiyado kala duwan oo ay ku jiraan dhar cusub oo uu xirto maalinta ciida waxaana la sheegay in dadka xaafadda ay u soo kala hormaraan imaamka si qof waliba uu uga mid noqdo dadkii ugu horeeyay ee hadiyadaha guddoonsiiyay imaamka